kusoo dhawaada halka aad naga dhageysanaysaan waa shabakada wararka boacame.com. qadka telefoonka waxaa noogu jira cabdirasaaq maxamed jaamac oo loo yaqaana cabdiraxmaan sanweyne oo isagu ahaan jiray maayarkii magaalada laascaanood intii u dhaxaysay 1992 ilaa iyo 1999. cabdirasaaq ayaa sidoo kale wuxuu ka qabtay xilal kala duwan wadanka Soomaaliya oo uu kamid ahaa xildhibaan uu ka noqday dawladii carte lagu soo dhisay. cabdiraxmaan oo qadka telefoonka hadda ku jira ayaa wuxuu ku sugan yahay magaalada Toronto wadanka Canada. cabdiraxmaan cabdirasaaq sidee noo maqashaa kusoo dhawow shabakada wararka boacame.com. waa ku dhawahay aad baad u mahadsan tahay si wacan oo idin maqla. marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inkastoo aan filayo dadka badankood ku dhageysanaya ama ka soo jeeda gobolada inay ku yaqaanaan, bal wax yar ma nooga tilmaami kartaa xilalkii kala duwanaa ka soo qabatay wadanka Soomaaliya? runtii inta aad sheegtay waa xilalkii aan soo qabtay bay kamid yihiin. sanadkii 1992 waxaa lagu magacaabay oysimada iyo waxgaradka iyo bulshada deegaanka laascaanood lagu magacaabay maayarka laascaanood. waxaan ahaa ilaa 1999 xilkaa waan hayay. intii ka dambeysay shirkii carto waan ka qayb galay. waxaan kamid ahaa ergadii ka qayb gashay bulshada SSC uga qayb gashay. halkaana waxaan ka soo noqday xildhibaan dawladii lagu soo dhisay carta TNG. muddadaana waxaan ka shaqaynayay xilkaasaan ka shaqaynayay muddo ilaa 3 sanadood oo wax yar dhiman xamar baan ku sugnaa. intii ka dambeysay waxaan kamid ahaa ergadii uga qayb gashay dawladii TNG-da shirkii Eldoret. muddo 3 bilood aan Eldoret ku sugnaa oo shirka ay hawshiisa aan u joogay. dabadeedna aan haddana private soo yeeshay oo ugu soo noqday magaalada laascaanood oo intii ka dambeysay halkaas muddo yar oo kooban aan hadda ku sugnaa dalka Canada mooyaane halkaasaan ku sugnaa. cabdirasaaq waan gartay, waa mahadsan tahay. cabdirasaaq, gobolada aad ka soo jeedid gobolka Sool lamaynu nirahno ilaa Yacayn waxaa ka jirta xiisado colaadeed xilligan hadda la joogo. maxaad ka warhaysaa xiisada colaadeed ee ka taagan goboladaas iyo maamulkan qaas ahaan Somaliland ee weerar ku soo qaaday? runtii Axmedow, horena waan uga hadlay arrinta, haddana waan ka hadlayaa, dibna waan uga hadli doonaa haddii Ilaahay idmo inta ay taagan tahay arrintaasi. ragga wada iyo meelaha laga soo duulay ay dibta sidaa u wadaan. diyaar baan u ahay inaan uga hadlo dadkayga maadaama aanan halkaa joogin maanta aanan ka qayb qaadanay. waxtarkii kale iyo hadalba waan diyaar baan uga ahay wixii ra'yahaan aan dadka u gudbin karo ama aan ka geysan karo ama khibrad ahaan iyo experience ahaan inta aan ka ogahay sida wax u socdaan. waxaa meesha ka jira dhibaata ka taagan. bulshadaasi waa bulsho walaala, labada dhinacba dad walaala oo ab iyo dhaliya iyo ood wadaaga. dhibta waa laga dhex abuuray, waxaana abuuray maamulka hadeer jira uu ka yahay Shiilaanyo uu madaxda ka yahay. dhibaatadaas waa dhibaato ku bays garaysan baad moodaa sida hadeer wax u socdaan dhuldoon iyo aarsidoon ayay hadeer wax loo wadaa. waxaa taa calaamad u ah sidii Shiilaanyo uu hiilka cad ugu sameeyey geeshiisa markii uu soo dhex galay fidmadii kashaala ka dhacday iyo duulaankii kashaala ka dhacay iyo arrintii lagaga qotay baraagaha dhulka dadku leeyahay ama dhulka SSC. markii uu dhexdhexaadin baan ka noqonayaa, oday baan ka noqonayaa ee uu soo galay qabyaaladii iyo duulaankii dadka ku soo qaaday ee uu sameeyey ee uu ugu soo hiiliyey beeshiisa ayaa calaamad u ah inuu ka tegay arrin nidaam iyo wuxuu sheeganayay
oo u gudbay arrin qabiil. waxaa kaloo calaamad u ah markii dagaalku dhacay kii ugu dambeeyey khasaaraha badani ka yimid siilaanyo qayla dhalaan iyo kicin ayuu kula dhex dhacay dadkiisa especially beesha Isaaq. qayla dhalaankaasi ilaa haddeer Hargeysa iyo Burco ayuu ka socdaa. isaga ugu horeeyay oo bilaabay wuxuu sameeyay inuu isugu yeero madaxdii dhaqanka ee Isaaq oo madaxtooyadiisa kula shiray oo uu ku qanciyay in dagaalkaasi uu yahay dagaal lagu soo weeraray Somaliland, midnimadii Somaliland lagu dhantaarayo, sidaa awgeed in nin waliba uu reerkiisii dadka keeno lagana qayb qaato dagaalka. Cabdirasaaq waxyaalo badan baad ka hadashay. haddaan wax ku weydiiyo waxaad tiri siilaanyo waa dhul doon ama waa aarsi doon. dhulkan uu doonaya ma dhul buu doonaya magaca Somaliland inuu ku qaataa mise waa dhul qabiilaysi ah oo qabiil ka durugsi ah? runtii arrintiisu waa arrin isku dhex jirta. labadaba wuu wadaa. magaca Somaliland ee uu sheeganayana inuu ku qabsado rabaa. qabiilkiisana inuu si gaara ugu sameeyo ama ugu xuduudeeyo dhul aanay lahayn iyana damaca wuu wadaa. isagii rag kaloo beeshiisoo madaxa ayaa kula socda oo uu ka mid yahay Saleebaan Gaal, Maxamed Kaahin ka mid yahay. waa kala reer oo hoose taasi oo ay ku dhex qarsanayaan ta Somaliland ee ay leeyihiin xuduudahan ku gaadhana. ninkaasi waxaa caddayn u ah nooc kastaba ha wade wafti buu soo diray oo Burco u soo diray. waftigaas waxay ahayd wuxuu ahaa wafti la rabay inay kiciyaan bulshada reer Burco oo ay qabiil ku kiciyaan. waxaa madax u ahaa wasiirka xanaanada xoolaha inuu yahaan filaya Cabdi Awdaahir. waxaa la socday ina Kaahin, Koronel Kaahin. waxaa la socday Koronel ina Cumar Kurjoog. Burco waxay kula shireen qabaa'ilka iyo salaadiinta shir albaabadu u xidhan yihiin, waxayna u sheegeen in dagaalka ay qabiil ku difaacayaan nin walbana uu reerkiisii cid ka keeno. wuxuu ku soo xoojiyey oo haddeer soo diray oo shalay soo diray wafdi uu Gaboorso wato oo isna tii mid la eg sameeyey Burcana ka wada. waxaa haddeer la soo dhoobay oo la keenay deegaamada Kashaale, aaga Kashaale, ciidamo badan oo qabaa'il oo ka soo jeeda beelaha Isaaq. aan Cabdirasaaq wax yar ka dhex galo. dadweynaha halka naga dhageysanaysaan waa shabakada wararka Boocame online oo waraysi qaasa la yeelatay Cabdirasaaq Maxamed Jaamac. waxaan u geli doonaa hadda qaybtii labaad ee waraysi. Cabdirasaaq aan u gudubno qaybtii labaad ee waraysiga. waxaa tiri ciidamo aad u fara badan ayaa la soo dhoobay hadda deegaanada Sool iyo Cayn aynu niraahno. ciidamadan la soo dhoobay ma ciidamo qabiilada laga soo ururiyeyba, maadaama aad tiri ninkani madaxweynaha hadda ka Somaliland wuxuu la shiray qabaa'ilaadkii, mise waa ciidan dawladeed ama maamuleed? ma ciidankan haddeer la keenayo baryaha guuraabada ilaa siilaanyo ilaa iyo nimanka u haya xilalka ay wadeen ee ilaa Burco laga waday ilaa Hargeysa la keenayo sawiradoodaba lagu arkay website-yada qaarkood. waa ciidamo qabiil oo ka soo jeeda beelaha Isaaq. waa laga yaabaa in beesha uu siilaanyo yahay habar jecla ay ugu badan yihiin. arrintaasi waa arrin aad waxaa xitaa wararkaanu haynaa ay yihiin in ciidamadii Gadabiirsi ama Samaroon la yidhi qaab qabiil baanu ku dagaalamanaaye dib u baxa oo dib looga saaray. wixii kala socday markii nidaamkii maamulka ay siilaanyo uu leeyahay waanahay kuwii kula socday Samaroon. arrintaas waa arrin qaab qabiil u abaabulan haddeer oo qaab qabiil ku socoto oo iska bedeshay nidaamkii iyo wuxuu sheeganayay. taas waa taas weeyaan. haddii aanu dib ugu soo noqono arrintan hadda taagan, maxay kula tahay oo u banaan dadkan gobolka Cayn iyo ilaa iyo Sool oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Somaliland iyo ciidamada deegaanka? maxay kula tahay adigu inuu xalkeedu uu noqon karo? horta xalku waxa weeyaan
somaliland wax la yidhaahdo oo cidi wada leedahay oo sifo sharci ku dhisan oo cidi wada qaadatay ama jirtay hore u jirtay ma jirto waana arrin caalamku kasoo horjeedo international community-gu kasoo horjeedo sida aad ku warhayso wiigii hore wasiirka Ethiopia ayaa ka hadlay ee arrimaha dibadda wuxuu sheegay in somaliland wax la yidhaahdaa aanay jirayn ay ummadda Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dhismahooda una soo biiraan weliba ay wax ka qoraan ama cidii wax uga ogaan lahayd ay soo samaystaan dastuurka Soomaaliyeed ee la samaynayo sidoo kale shirkii London waad ka warhaysaa in la yidhi kaale ka qayb galeen wasiirka Afrika Ingiriiska kudhiisu uu ka sheegay ama uu ka hadlay arrintan mar su'aal BBC ka weydiisay in midnimada Soomaaliyeed aan la kala dhantaalayn cid caalamka ka tirsan oo u socota kala dhantaalkeedu aanay jirin sidoo kale wasiirka ku-xigeen arrimaha dibadda oo Norway Hargeysa tegay Hargeysa dhexdeedu ka sheegay I think inay daraadahay bisha kowdeedii meelaha bisha 17keedii meelaha inay ahayd wuxuu sheegay in aanu socon wax Somaliland la yiraahdo ama uu ku aqoonsanaa ama madax banaani Somaliland oo taageeraya aanay jirin arrinta uu ku guubaabinaya ama uu rabo in ay ka qayb qaataan inay tahay dawlad Soomaaliyeed baa la rabaa in la dhisay inay qaybtooda ka qaataan dhinaca kama soconayso dhinaca SSC ama dhulbahantana wax ka soconaya maaha horana waa loo hortaagnaa inaanay ka socon sababtuna waxaa weeyaan sida ay wax u rabaan qabiil bay uga carareen qarankii Soomaaliyeed Silaanya iyo raggiisa oo weliba isagoo mas'uul qaran oo Soomaaliyeed uu uga cararay dawladii iyo qarannimadii uu ku jiray qabiil oo uga sanad ugu gaa shalay bay ahayd weliba horena waan arrintaa waxaan uga sheegay qabiilkii buu rabaa maanta inuu cid kale intuu ku soo duulo cid kale aan la qabiilahayn uu yiraahdo qabiil baan idinku qabsanaya ama qabiil baan maamul ku wada ahaanana marka anigu waxaan leeyahay arrintaasi wax shaqeynaya maaha ka tanaasula baan leeyahay colaaduna yaanay badan haddii colaadu badato oo qabiil lagu soo abaabulo qabiil baa lagu abaabuli dhinacana lagaga abaabulo wayna ballaaranaysaa banka wajaale dushiisay ka bilaabmaysaa ilaa beri gunti yaan qabiil lagu abaabulayn waxaan idin leeyahay dadka reer Sheekh Saad iyo Silaanyaan leeyahay arrintaas dib uga noqdo haddaydan dib uga noqon dadkani way istifaacayaan qabiilna waa la wada noqonaya dib dambana loo qarin kari maayo ama looguma dhuuman karo magacba ama nidaam bayna ka dhaxeeya ama cid baa nagala kiin joogta marka anigu arrintaa waxaan leeyahay nabadgelyaha lagu soo dabaalo Silaanyo dhulka SSC ama dhulbaante ciidamadiisa ha kala baxo qaabka qabiil oo abaabulayo had joojiyo dadku dagaal uma baahna haddii uu intaa diido annagu faraha qaban mayno isagii jirta marka dadku istifaacaya cabdirasaaq baad u mahadsan tahay aanu ka wareegno markaa dhinaca Somaliland haddaan wax kaa weydiiyo maadaama adigu xilal kala duwan aad kasoo qabatay deegaanada iyo dawladii federaalka ama dawladda Soomaaliya maxay kula tahay arrimahan Puntland maxaa uga banaan inay ka tiraahdo laadahan ka socda dhulka runtii Puntland dhulbaanta dadkii wax ka taagay buu kamid ahaa مسؤولين يا مدح لقنبة ولبا كمد ما هنا هرمود يلا كاها وحاسد على إسكان نسيبرها كتشرته سيدي بالبهانة والتعبيري تذكر خير بيتلان أما بيش بيرها كلا خير بيتلان سبيشال بيش ماتشرتين يجو وجماي هم بين أما ما بيقيمين waxa Puntland ay tahay siyaasadda dhulbaanta uu ka lahaa qarannimada Soomaaliyeed lagu baahidoonayo wada dhalashada iyo cid waliba maanta waa qabiil isu soo ururinta intii wax isu ahna lagu ururinayo kuma shaqeyn saddexdii mas'uuliyadooda meesha isaga dambeysay iyo madaxdooda midna kuma shaqeyn waliba waxay ku shaqeeyeen hagardaamo iyo lugjiid iyo arrimaha maanta ka taagan gobolka Sool oo iyagu ay 75-90% ay leeyihiin mas'uuliyadooda dadku isku haleynayay nidaam iyo maamul iyaguna ay meesha joogeen iyaguna ay yihiin cidii uun banaysay meesha oo kaalintoodii qaadan weyday
waxaan filayaa arrintaasi waa arrin taagan waa arrin saddexdii nin ee mas-uuliyadda meesha kasoo qabtay iyo ciddii kale meesha s c kasoo jeeday ee iyaga la joogtayba ay mas-uuliyaddooda ay wax ku leeyihiin waa arrin xisaabteedu iman doonto oo laga xisaabtami doono waa arrin la og yahay sida ay wax u yeeleen dadka s c mas-uuliyiinta reer puntland anigu ma wada odhanayo dadka mas-uuliyiinta madaxda kasoo noqotay puntland dadka ay kasoo jeedaan ama beesha dadweynaha bulshooyinka ma jeerteen oo dhan ma cambaareynaya ama ma saarayo kiiska laakiin calaamaadkii la fuliyey waa la hayaa document baa lagu hayaa waxaa lagu hayaa siyaabo kale ficil baa lagu hayaa wax walba waa lagu hayaa haddana uun wax ay ka qayb qaateen arrintan socota ama ka muuqataa ma jirto faroole danihiisu wataa oo ka shaqaynaya umana soo jeeda meesha marka waxaan leeyahay kii la socda lamida ama ra'yi ama arki waayo kaniisadda qabiilinimo ee isagu uu leeyahay haddii faroole ka shaqeeyo haddii cabdisamed cali shire uu arki waayey kaniisadii qiimaha s c ama dhulbahante dadku dee ha tashado difaac iyo dadnimiya dhaqaalaba isugu filan dhulbahanta isugu filan waana la xisaabtami doona cabdirasaaq ta kale haddaan ku weydiiyo dhawaan waxaa jirtay nin ka tirsan madaxda s c oo lagu xiray magaalada gaalkacyo xiritaankaas oo la sheegayo inuu kasoo fulay dhinaca garowe hase ahaatee dadka gobolka mudug oo ay leeyihiin cilaaqaad wanaagsan dadka reer buuhoodle ama dadka s c aan idhaahno inay halkaa lasii daayay ma kula tahay marka puntland gudaheeda ama mujtamac ahaanba inuu khilaaf weyn ka taagan yahay habka ay ula xiriirayaan ama ilaa iyo heerka ay ula xiriirayaan ama waxa ka dhex dhacaya iyaga iyo s c inuu khilaaf ka jira ma moodaa runtii s c maamulka iyo nidaamka s c waa markaan s c ka hadlayo dhulkii kama hadlayo waa nidaamka s c ee maamul ee jira iyo haddii puntland wax u dhexeeyaan ma aha inay ku dabaqaan arrinta dhulbahante ama dagaaladan iyo dhibaatada colaadeed ee ay soo wadaan beelaha isaaqiyo ciddii la socota inay puntland ku dabaqdo s c arrinta socota ma qaba anugu s c dhulkaa dadkaa waxoo dhan ba ah laakiin ashkhaas maamul hadday isqabteen taasi kuma dabaqmaso dhulkiiyo dadka wax beri marka la xisaabtamana cid ay ku qancin karaan maaha waxaan u arkaa s c hadday baacsanayaan iyo haddii kale arrintu maanta ma taagna arrintu waa arrin dhulbahante iyo dhulkiisii iyo dadkiisii taagan waxaan qabaa arrinta iskood bay u diidayaan ugana cagajiidayaan waxa ay u xidheen yaasiin tamaadna un waa nooc minal waa arrin dee lagu curyaaminayo hawshii socotay waa tactic kamid ah waxaan qabaa arrintaa reer mudugna waan u mahadnaqaya dadka mudug degan reer s c ama beesha dhulbahantana aad baan ay loo wada ogyahay inay isaga dhow yihiin dadka kale marka waxaan qabaa inay tahay dee curyaamin arrinta ninkaa lagu sameeyey inay curyaamin tahay baan qabaa halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka boocame .com kusoo dhawaada halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka boocame waxaa inoo socday waraysigii qiimaha badnaa ee aan la yeelanay cabdirasaaq jaamac cabdirasaaq sanweyne oo isagu xilal kala duwan kasoo qabtay soomaaliya qaas ahaan magaalada laascaanood oo isagu ka ahaa maayarkii 1992 ilaa iyo 1999 cabdirasaaq waraysiga hadda waxaanu soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay bal waxaad nooga warantaa xiriirka ay leeyihiin dadka s c iyo ama aynu nidhaahna kelinka shanaad ama gobol waa wadanka Ethiopia waxaan qabaa dawladda Ethiopia guud ahaan dawladda federaalka iyo kelinka shanaad iyo beesha s c ama dhulbahante inaan xiriir xumo ka taagnayn iska nidaamo farsamo oo maamulku aan isku habaysnayn beesha laftigeeda oo ah beesha ugu dhulka
iyo deegaanka ballaaran Ethiopia ama kilinka shanaad ee Soomaaliyeed ee Ethiopia marka laga saaro beesha ogaadeen waxay noqonaysaa beesha dhulbahantaana beesha SSC beesha ugu dhulka iyo deegaanka ballaaran uguna populationka badan runtii xiriir xumo marna may dhex marin ama kilinka shanaad ha ahaato ama dawladda federaalka ha ahaato iyagu beel ahaan way cabanayaan waxay ku cabanayaan degmooyinkii aanay wax ku lahayn iyagoo capacity-ga leh oo dhulkii ugu ballaadhnaa ugu population ballaadhnaa marka beesha ogaadeen laga saaro way cabanayaan cabashadaasina way taallaa laakiin dawladda Ethiopia xiriir wacan baa ka dhaxaysiya hadda laftigeeda buuhoodle marar laysku arkay way jiraan ama beel ahaan ay soo arkeen dadka ama SSC ahaan iyo nidaamkii SSC halkaa raggii mas-uuliyiinta ka joogay ha ahaadaan hay sarkaan waxaan qabaa ma aha beel cadow u soo maro Ethiopia horena umay dhicin been iyo propaganda mar walba laga sameeyo oo waliba nimanka sheeganaya waxaan nahay waxa la yiraahdo Somaliland ay ka sameeyaan al-shabaab baa nala dagaalamaya waxana nala dagaalamaya waxa halkan wax allaale iyo wax ka jiraan ma jiraan waliba hadii cid ay cidda tahay ama ay cidda lagu sifayn karo nidaamka waxa leh silaanya lagu sifayn karaa waxa loogu sifayn karaa maamulkiisa ay kamid yihiin oo ay kamid yihiin Dr. Gabosi Maxamed Xaashi oo xiriir aad u dawlad al-shabaabka beeshiisa 75% beeshiisa oo 75% ay tahay xiriir la leedahay wadaadada xaq jirka maxaakiimtii bay taageereen iyagoo kulmiya waqtigii uu kulmiye xisbiga la yiraahdo uu ahaa waqtigii maxaakiimtu ay qabsatay magaalada Muqdisho dadkii taageeray ama ayuu silaanya iyo xisbigiisu kamid ahaa marka propaganda ama sheekada aan jirin propaganda laga sameeyo dadka waxba kama jiraan dawladda Ethiopia way ogtahay xiriir iyo darisnimo iyo wanaag iyo sharaf baa ka dhaxaysa Cabdirasaaq waxaa jirtay dhawaan warar kala duwan oo dacaayada oo lagu soo qoray dhamaan ama badankood website-dada ama journalada ay leeyihiin Somaliland hadalladaasna ay ahayd hadallo ay yiraahdeen dad ayagu ka tirsan maamulka Somaliland kuwaas oo ku tilmaamay dadka deegaanka buuhoodle dagaalkii ka dhacay inay ahaayeen ONLF sida aanu ognahay ONLF oo u badan dadka ka soo jeeda ogaadeen ama ogaadeen ka soo jeeda la dagaalama maamulka ka jira Ethiopia ee kilinka shanaad sida aanu ognahay wax cilaaqada lama laha dadka SSC oo shacbi ahaan ma taageersana marka hadalkan ay yiraahdeen ama al-shabaab bay ka soo jeedaan ama ONLF niman ka tirsan baa meesha nagula dagaalamay ma yay qaldayaan ma reer galbeedkay qaldayaan waa maxay hadalkaas ujeedada mise waxay rabaan inay cudurdaar ka samaystaan arrintaasi Axmed waxa weeyaan arrin arrin lagu doonto marka cid la rabo in lagu dhufto ama loogu sheego wax kale waa nooc lagu shaqaysto laakiin waa arrin aad u duuga waqtigan oo waxa weeyaan caalamka international community-ga iyo dawladda dariska ee Ethiopia cid waliba ay hadda horumar ka gaadhay laakiin mar lagu shaqaysan jiray ay jiraan ay jirtay sirdoonka Ethiopia waa dawlad 3 sanadood dawlad ahayd sirdoonka Ethiopia wax walba uu u warhaya maanta niman loogu sheegi karo area buuhoodle ama ka shaale waxaa ka dagaalamay al-shabaab ama ONLF oo dhulbahante la garab ahayd ama kala dagaalamayso nimanka meesha ay isku qabteen xaggooda ka soo jeeday wax jira maaha wax Ethiopia ka qaadanaysa maaha wax international community ka qaadanaya maaha waa waxay rabaan inay culaad ugu geliyaan SSC iyo beesha dhulbahante international community ama reer galbeedka dawladaha reer galbeedka ama Ethiopia laakiin waa wax maanta looga waroon yahay looga mukhaabaraad iyo sirdoon badan yahay waa waxaanay qaadan karin caalamka iyo dawladda Ethiopia oo nafna haday dagaalamayso iyo hadii kale
waa niman beelna ka tirsan magac beeleedna wata waxayna ila tahay meelaha ay joogaan baa jira raad horena may lahayn dadka deegaanka Ethiopia ee dhulbahante halkana sabab ay raad hadda ugu yeeshaan ma jirto al-shabaabna maaha niman weligood raad ku yeeshay deegaanada SSC ama xagga Ethiopia haato ama xagga gudaha ha ahaatee aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Cabdirasaaq Saweyne oo jooga hadda magaalada Toronto ee wadanka Canada oo waraysiinayay shabakada wararka boocame.com inta aan ka kulmi doono waraysi kan lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Kobashiisa kuma leedo waligina kul mare udcada wuxuu yiri in haduu gardana yahay kobashiisa kuma leedo waligina kul mare